warbixin ay heshay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu ayaa lagu sheegay in dowladda Talyaaniga ay codsadeen hay'adda sirdoonka qaranka Turkiga MIT in ay soo badbaadiyeen Silvio Contosto Romano oo 25 jir ah, taas oo bishii November ee sanadkii hore laga qafaashay deegaanka Kajakama ee waqooyiga dalka Kenya. Hay'adda sirdoonka qaranka Turkiga ee MIT waxaa la sheegay inay bilaabeen in ay sahmiyeen xaaladda haweeneydaasi bishii hore sanadkii hore 2019 waxayna sirdoonka Turkiga sheegeen in haweeneydaasi weli ay nooshahay. howlgal wadajir ah oo ay qaadeen hay'adda sirdoonka qaranka Turkiga ee MIT iyo sidoo kale unugyo ciidanka ka tirsan ee Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa lagu furtay haweeneydaasi meel 30 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. howlgalka gurmadka ayaa la sheegay in ay qaaday bishii May 8 ilaa 9 lana soo badbaadiyay haweeneydaasi afduubka loo haystay 18 bilood. diyaarad khaas ah oo dowladda Talyaaniga ay leedahay ayaa loo soo diray Silvia Costanza Romano oo shalay ka dhooftay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho. galinkii dambe shalay ayay diyaaradaasi ka degatay garoonka caalamiga ee diyaaradaha Giambio ama Campioni ee ku yaala caasimadda dalka Talyaaniga ee Roma. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Giuseppe Conte, wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Luigi Di Maio iyo sidoo kale qoyskiisa ayaa soo dhaweeyay haweeneydaasi, waxaana ay u mahadceliyeen dhammaan hay'adihii ka qayb qaatay howlgalka lagu soo badbaadinayay Silvia. dhinaca kale warbaahinta Talyaaniga waxa ay sheegeen in haweeneydaasi laga soo badbaadiyay howlgal wadajir ah oo ay qaadeen hay'adaha sirdoonka dalka Turkiga, Soomaaliya iyo sidoo kale Talyaaniga. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ee Talyaaniga Mario Sereni oo la hadashay telefishinka Talyaaniga ee LA7 TV waxa ay sheegtay in iskaashiga lala yeeshay hay'adaha sirdoonka Turkiga ka jooga gobolka si loo helo halka lagu hayo haweeneydaasi iyo in tilaabo laga qaado xilliga ku habboon dadkii ama ciddii ka dambeysay afduubkeeda.